waxaan maanta dul istaagayaa maadaama uu waqtigii hore kulmiye ahaan jiray arrimo badan oo aan kulmiye ka sheegay oo xaqiiqoobay sida in kulmiye aw dadka kala sooco oo aanu ku kala soocin maxay ahayday shaqooyinkooga iyo kartidooda iyo cilmigooga balse uu ku kala sooco maxay ahayday beelaha waxaad ogsoonaydeen in wasiirkii biyuhu yidhi wasiirada beesha dhexe mishaharka waa loo daayaa gunnada waa loo daayaa gawaarida waa loo daayaa marka shaqada laga eriyo laakiin wasiirada beelaha kale looma daayo taas waxaan caddaynayaa wasiirkii ugu shaqada badnaa wasiirkii ugu maxay ahayday galgalka badnaa isla markaa wasiirkii kulmiye dawladda hoose ee boorama doorashadii dawladaha hoose ee boorama keenay 6 xildhibaan oo ayna keenin wasiirro kale oo ree awdali wasiir cabdirasaaq cali cismaan markii wax walba qabtay sifo sharci darro ah oo maxay maamuus darro ah ayaa lagu eriyey lagu eriyey sidii maxay ahayd qof aan waxba qaban qof saluug badan laga qabo ayaa mishaarkii laga gooyey isla markaa gaarigii laga qaaday waa ayaan darro waxa jirta in wasiirro kale oo meelaha ka caycaytami jiray oo aanan waxba qaban sida wasiir geeljiro kale gunnadii u socoto gawaari la siiyey waxa aad iyo aad aan uga xunnahay in waddankii jar ka dhaco in dawladda kulmiye yuhuuntii iyo iskaashigii iyo wadajirkii iyo isdhexgalkii dhammaan beelaha Soomaaliland ee dawladdii udub ka tagtay ay baabiiso waddankii waxaad ogsoon tihiin in qandaraas dawladda kulmiye ku qaadatay iyadoo aan rajo ka qabin in dib ay isku soo sharaxdo oo la doorto waxaad ogtihiin in dekadii berbera hore loo iibiyey waxaad ogtihiin in si sharci darro ah lagu ansixiyey saldhigga military ee dhammaan dadka reer Soomaaliland wadamada jaarka ah ay ka soo horjeedaan waxaad ogtihiin in qarannimadii meel xun gashay oo ay meel xun ku dhacday waxaad ogtihiin in dawladda wada hadalladii ay Soomaaliland Soomaaliya la waday ee masiirka in lagaga talinayo la moodayay ay noqotay mid lagu shirqoolay Soomaaliland mid qandaraasyo lagu soo qaatay mid midnimadii lagu ansixiyey ay noqotay dhammaan waxa la cadeeyay in mashaariicda ay Soomaaliland la gashay adduunyaday sheegayso ay ansixisay dawladda dhexe xubno gaar ah oo dawladda dhexe ka mid waxaanu aad uga xunnahay in qarankii halkaa ka dhacay in dawladdii iyo guurtidoo is adeegsanaya ay baabiyeen qarannimadii in sifo sharci darro ah golihii sharci dejinta ee baarlamaanka ee xaqa u lahaa inuu ka doodo mashruuc kasta oo la keeno in maxay ahayd la afduubay in guddoomiyihii bannaanka uga soo baxay in xildhibaanna la xidhay aad iyo aad baan uga xunnahay kulmiye wuxuu adeegsadaa dad aanan ahayn muwaadiniin dad ay yuhuuntooda ku jirto keliya mishahar qaado lacag qaado taasina qarannimada dhib bay ku tahay waxaanu caddaynaynaa in maanta la ii sheegay madaarka boorama inuu yimiday wasiirka duulistii hawada wasiir kasti maalin kasta oo la magacaabo uu yimaadaa dibna uguma soo noqdo wuxuu adeegsadaa dad maxay ahayd ducafaa oo faaniya oo idhaa wasiir hebel waxbuu qabtay haddaanu nahay mas-uuliyiinta xisbiga waddani waxaannu leenahay waddankii dadweynaha waddanka ku uumani ha ogaadaan jar buu ka dhacay qarannimadii waa la iibiyey waxaa cad in dawladdii muqdisho lagu daray waddanka maadaama mashaariicda intaa leegba ay qalankii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ku dhacday oo ay saxeexeen sida uu sheegay hantidhowraha guud ee qaranka Soomaaliya waa qayr sharci in dadka reer Soomaaliland lagu jujuubo waxaan maslaxadooda ahayn waayo anagu waxaan ogeyn in Soomaaliland wada hadal kula jirto iyadoo aanan la socodsiin iyadoo siyaasiyiinta gobolka Awdal iyo gobolada bari ee aan beesha dhexe ahayn midna aanay raaci jirin wada hadallada waxaanu leenahay waddankii wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo dawladdii kulmiye waddankii weyna iibisay waanay burbursay qarannimadiina diiq bay ku jirtaa maadaama oo ay dawladdii Soomaaliya hoos tagtay
dee maanta dowlad goboleed puntland oo kala un baanu nahay wax been in qaranka loo sheega maaha waxa mudan in markaa haddii dowlad goboleed la noqday annaguna haddaanu nahay ree awdal waxaanu rabnaa xuquuqdeedii dee dowlad goboleednimaan ka rabnaa dowladda